odagaygu dhintaa ka shaqeyn magaciis maxamed axmed cabdi cawke hooyo ayaa gabadheeda oo 9 sano jir ahayd isla markaana daayar ahayd waxa ay ku dishay xaafadan iga dambaysa oo ku taala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho gabadhaasi daada yarta ahayd ayaa waxa la sheegay hooyadeed in markaasi ay gurigan iga dambeeyay qolka inta hoos ka soo xiratay ay gabadheeda ay jirdil u geysatay sidoo kalena markaasi ay gabadhaasi yarta ah ee ku dishay waxa maalinnimadii Khamiista ahayd falkaasi oo dhacay ayaa waxa la ogaaday maalinnimadii shalay ahayd in hooyadaasi gabadheeda ay dishay isla markaana sariirta hoosteeda ay gabadhaasi iyadoo meeyda ku jirtay waxa loo qaaday xarunta CID-da si baaris loo mariyay iyo sidoo kale isbitaalka waxaana la sheegay in gabadha meydkeeda oo jirkeedu aad u baaba'san yahay sidoo kale jirdilo kala duwan ay ka muuqdaan ay markaasi la soo saaray hooyadeed waxa la sheegay in mid kamid ah saldhigyada magaalada Muqdisho ay lamaha ammaanku ay ku xireen falkaasi iyo sidoo u dhacna waxa warbixin naga siisay gabadha ayeedeed aabaheed dhashay Madiino aniga islaantan maalintii Khamiis ay soo wacday waxay tiri marka waxay dhahday gabadheeda iga leexo gabadhaada aniga ayda isma arkin aan dhahay balse haddaan arkay anaa weydiiha waadii imaana maalinta Khamiista waay galabta Khamiista aan u tagay markaan u tagay gabadha awdayaan dhahay waxay dhaheen gabadhii barafaa loo diray cabaara sugay maqribkii aan ka soo baxay aniga ma sugi kariye anaa soo wacada maqribka soo dukada qada maqribka gaan dukada waan wacay waxaan gabadhii ma imaatay ha waa imaatay hal xab baraf aan u dirsaday laba xab baraf ay ii keentay saas miyaha hayba haday imaatay qeyr waayaan iri waayahay gabadhu markaas ilmaheedu waxay sheegeen ay cadeeyeen wiilkeeda wuxuu cadeeyay inay sariir toosteeda ku jirto iyadoo meyd ah gabadha oo lagu riixay koow markaan tagay waa ka albaabkan gargaraacay waa u xiran yahay kan gargaraacay waxay tiri mawliida la bisanaaye sug gabadhii ay la sariirta lagu si hoos cabeeyo haya waayahay banaanka istaagay hawsheeda markay dhamaysatay albaabkay iga furtay waan galay haddaan galay waa fariistay cabaaraan gabadhii sugay barafay ku maqantay la leeyahay waaba gabarmeeda maqribka dil adimo iska soo baxay aniga gurigaygan soo aaday عشان مركو سو دوايان وعي waxaan gabadhi ma imaatay mise waa dhuntay gabadhi waa imaato hal xab baraf u dir laba xab baraf ay keentay qayr waayaan waa iska joogay shala galab waxay shala subax 4 saac soo wacday maxaa darnaa asma way dhimatay maxaa ku dhacayaan dhahay waxa ku dhacay shuban iyo mataga ku dhacay saakaya qaaday xalay ma qaadin aniga waa cabsaday maxaa xalan noo soo wici weysaan dhahay أنا أقول قاعد لهنا ميا ماذا حلا جيبنا يا هيك تقول دلها هذا ما دمتها وايها يعني اللهم حريص ميتك سوقات أكيد ميتك أنا وقرابة سنجيت وفدين وصوّد أولاد مركز دم وحي كنتي ميتك وليد دي يا كود دينا على ميتك اسبتال كايد دي إلا جردلك وارك بدي سحني ودلنت حالا مركي دقاي كركاد waa dintahay saas u dhahay wal dhaq waayid sida loo joogay saas markay tiri abaara la joogay saldhiga hodan ayaa isoo wacay wuxuu dhahay gabadhaas ma taqaana ha dhahay gabadhaas waa xirantahay saldhiga hodan imaad meeshan tagay meesha saldhiga daantay waxa la Madiina loo gudbina naagta waa xirantahay isbitaalkaana isoo wacay dhibaatada haysta gabadhan CD aan la marsiinaya waayahay isbitaalka Madiina hadana soo gudbinay oo nala soo gudbin waa ka soo tagnay xalay 6 saac aan dugnay gabadha meedka aan dugnay xalay 6 saac aan dugnay meedka waa 9 jir marka gabadha kor iyo hoos waa laga duqeeyay gabadhan wax fiiyo ma ahaynba dhanka kale Nimca Ibrahim waxa ay kamid tahay dadkii wax ka dhaqay gabadhaasi isla markaana wax ka soo dugay bal waxa ay inooga waramaysaa gabadhaasi jirkeeda iyo wixii ay ku arkeen wallahi ani calool xumo badan aan ku arkay
canugta ilmihayga adeerkooda dhalay iyo daa uga aadanahay marka canugta aniga maamada dhaqaysa ayaan la kaalmeynayay qofka gadgadinayay baa aniga ahaa midda kaleeta maxaa dhihi jiray canugta meel walba oon ka gadiyey gacanta markaas saan usoo rogay saa markaan usoo rogaba meesha usha ku taalaba diirkaa ka dhacay haddana dhanka kale markaan u rogay aniga maamada way dhaqaysa gacantii ku waday aniga waan la rogrogaay caloosha marka waydaaraha dibirta caloosha marka saas maamada ee ka dhadhahday ee ka xafuujisay waxaa ka imaaday madhaciraheeda camal oo adigu saxar dhicirteeda burbursan camal saaid u shiiraad qof oo dhimashadiisa cabaar nagaata camal waa fahmaysaa marka aan inta dhaqidda leen hubaa wax kale waxba kama sheegi kara laakiin dhaqidda aan dhaqay jirkeeda meel kasta oo maamada la dhaqaan la kaalmeynaa meel walba meel la fiirin dhan jirdil xuna ku yaalay waxaan raqiibi catiibaa nasaaran runtii in laga hadlaa fiican marka canugta jirdil xun baa ku yaalay canugta korkeeda dhabarka meesha kaadida waxaas dhan way ka marmaruubsaneed gabadha inta waxaa ugu yaalay inta waxaa ugu taalay wax macalin dhulku dhufta camal fiilo qof adi fiilo inta lagu qabta saas loogu soo qabta camal ee u ekeed korkeeda dhan qof si xun loo dila adigo wax gadguduudan iyo wax hore baaba'ay iyo wax cusub iyo wax hadda diirka ka dhacay waa intaasaa ku arkay gabadha intaan dhaqayn dhan intaasaa ku arkay dushaaba u darnaato calooshan ha u darnaato dhaawacaas cusubaa ku aragnay marka saakin waaba loo bariisiyaa waa la bariisiin waay dhaawacaasaa dildilaacayaba falkaasi oo dhacay maalinnimadii khamiista ahayd sida la sheegay ayaa waxaa la ogaaday maalintii shalay ahayd oo jimco ahayd kadib markii saacado iyo maalinba ay kasoo wareegatay muqdishona muddooyinkii dambe waxaa kusoo badanayay falalka noocaani oo kale ah ee ugubka bulshada ku ah islamarkaana bulshadu aad kula yaabaan cabdikariim cali aadan warbaahinta goobjoog muqdisho